وامر kale iyo silsiladii milga iyo ismaan dhaaf qaybtii 13aad oo hadda dabka laga soo qaaday ayaa la soo saaray barta aynu ku wada caweyne ee midnaba qaran films waxa qaybtan codkiisii baxsanaa inuu soo tabinaya fanaanka daadayar ee Cabdiweli Xasan Dhooy Cabdiweli oo rag u safan isla markaana gaashaanka u daruuray Xaliima Hilaaciyo dhaantadeedii rag lagu karbaashiyay ayaa yiri xaalku midab la dilo uu ka miisaan fogeeyay Soomaali maalkeedu meeshii ka bixin idinka moobilada meherkiinii ku xidhay midhahani waxay ka soo burqadeen abwaanka weyn ee reer Hargeysa Sakariya Saryan oo weerar ciri iyo dhul حاوليدا كسو قاداي دنكا iyo Soomaaliland waxanka iyo muusigu waa macallimiintii hore aan wartooti iyo Maxamed Yare waana soo saartay midnimo qaran films garta murugta iyo miiska hadalku yaal arrimaha markay raagu meel saarayaan sareeyay yaad soo martii jirteen arrimaha markay raagu meel saarayaan horta dumarku miyay soo martii jireen meerayna jirin marna kama heshide ku yidhi malkaadana ku jaabin mar hore wuxuu kaa mudnaa marxabiyo gudoon kama heshide ku yidhi malkaadana ku jaabin mar hore wuxuu kaa mudnaa marxabiyo gudoon xishooda tiyo Soomaali maalkeedii meeshii ka bixin ka jooga idinka moobilada meherkiinii ka dhigay miisaan fogee xishooda tiyo Soomaali maalkeedii meeshii ka bixin ka jooga idinka moobilada meherkiinii ka dhigay
baatiri armii haween inay meel maran inta maxamadiya meel kaaga mataan فوقي حشوضة تيون صومالي مال كيدي ماشي كبيحين كجوغا إيدي كامو بلاذا ميركيني كديغاي فوقي حشوضة تيون صومالي مال كيدي ماشي كبيحين كجوغا إيدي كامو بلاذا